سودا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالك استاد شوكتان بوين السلام يا عاو ميسكو حينو سارن ساد اوكتين كرباشكا بيل عاو كسودا بب 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 طبعا انا ولا سوق بني ان شاء الله هدو الى ادمو كرباشكا عاو وحو كسودا وا انجينير امير waa markii labaad uu reer ka soo faragashado reeraha beelaha gabooye waa markii labaad uu soo faragashado koow ma aha laba ma aha saddex ma aha engineer amir waxaad la soo hadasho waxaad igu tiri xamdi doorkii hore waan khaldamay walaalo iga raali noqo xoogaa habeenka sax ma ahayn xamdiyay afis ayaan ku weydiisanaya waan ku cafiyay makhaarti waxa la beenaale baa lay makhaartigiisu fogeeya waxa garabkaaga fadhiyay Ilyas eegas burco dad siqaano isku reer burcayno nahay ma fahmaysa waliba dad isku reer maltaaban inagu isku nahay amiro ma fahmaysa marka caaw xashadaya leefkaagi waxa reerkay ku aflagaadeynaysid adigoo magaca dusha sarac ma garanaysaa xoojinaya aniga sidaadoo kale kulay ma ihi waan ka sharaf badanahay
hadda daawo adan kugu bilaabaya insha Allah نور دالعي قلدا دغيست قلدا هبل جرنا waxa noo soo baxay kaayar ee kala dhaqaaqa isteel kaya magaras iyo ina wadna iyo dadkaas aan anagu dhageysanayna waxa inuu wala fanaanka ka dhageysto fanaankeegi baa nagu haysataane maxaan dhageysanaa bismillaahi abdu bismillah dhamaantii waan idin salaamaya meel kasta dadku tacaladiisa ka joogtaan runtii social media imika kuma badni laakiin waxa la yiri ni jirka la haya jidinka kama qoslo waxa weeye marka karaamadaada iyo sharaftaada iyo cirdigaaga lagu soo duulo inaad daawatid waa qalad waxa weeye marka maanta wuxuu yiri Allahumma salli ala Muhammad waad aragtaan wuxuu yiri calaashan cirdigaaga iyo qabiilkaaga iyo waxa tahay marka lagu soo duulo aad ka aamustid waa khalad way ma anagana lagu soo duulay mise idiga inagu soo duulay taas waa su'aal jawaabteeda shacabka bixinaya amaan inanteena burco la yiraahdo la ceebaynayo ee reerka gabooye ceebaynayaan reer saqiir oo kabiir xaq waxaad u leediin inaad ka hadashaan waxa socda waad u jeedaan saqiir oo kabiir reer maanta isu soo wada raacay oo 16 sano ka hor lagu kala baxay oo DNA la qaaday oo waliba reerka maanta dacwoonaya la xukumay oo xabsiga lagu xukumay oo ay cafiyeen reerkeena tuwaxay waligii sheekada ma maqasheen been waatan hadaba lagu soo dhiibo waa la soo kristay engineer Amir lacag baan soo siiyay bariyaha wuu aamusnaa bariyaha beeshkiisa uu kala kacsanayn xoogaa waxa la soo xidhiidhay fanaanadii baan siri fanaanada mareerkiina la ceebaynaya mise fanaanada mayadaas ceebaysay oo qabiilkeedii ka cartay oo gud ka guuro qanjo u guur noqotay oo midgaanimayada raadsatay iyadoo nasab ah oo dad dhaladkeedii la yaqaano oo boqortooyadii bucur bacayr ka soo jeeda ma fahmaysaa mayada ka cartay qabiilkeedii mise anaga qabiilo kale ku qabsan karayna na wali intan hadlini anaga isaaq aflagaada naga ma hayo mana aflagaadeenino isaaq waa beelo badan ma aflagaad sidaadoo kale ma nacnaclayna bari dhageysta waxaan isdul taagi doonaa inantan burco sida ay u luntay iyo sida reerkan u qaateen ayaanu maanta ka hadli doonaa waxaanu kaloo ka hadli doonaa yaa xada caruurta la xado beelaha gabooye ayaa xada waxa weeye qof kasta oo isaaq oo caruuri ka maqan tahay waa inuu maxkamad la fuula beesha gabooye ama tumaal ha noqdaan ama qolada midgaha la yiraahdo ha noqdaan ama qolada yixirta la yiraahdo ha noqdaan waa in maxkamad lala fuula waayo waa cidda kaliya ee ubadka xadda weey waxa weeye halkaas in jawaab ka siinaya wuxuu yiri waana jecel inay naga saddex gal hadaladiisa wuxuu yiri amba tumaal ha noqdaan amba yixir ha noqdaan amba gabooyaba ha noqdaan caruuraha la xado ayaga xado in ayaga laga xisaabtamo ayaga laga raadiya haday la socon halkaas jawaab baan ka bixinaya isaaq oo dhan raalaha iga noqdaan jawaabtan ka bixinaya waxay tahay iska daa caruuraha gabooyaha caruuraha isaaqa inaan soo xadna iska daayo hablihiina isaaqa ah ragayga gabooyaha marka loo doono oo loo diido il xalaal ma ogolidiin waan iswada ognahay waan isla degnahay marka loo doono way xalaasha calaashan diinta islaamka loogu diido oo midgaan baatay ma geydid wuxuu sameeyaa inankayga gabooyaha gabadha wuu uuraya waa caruurta yar yar oo lagu soo korinayo calaashan ma garanaysaa waad ka daawateen facebookyada waana soo dhigi karaya clipkaas youtube-ka ku jira caruurta qaracyada ah ma ogolo xitaa beelahaas isaaq ah ma ogolo xitaa ilmihiyo qaraca inay gabooyo lagu tilmaamo waaba qarac aabihi waa la diiday marka hore xalaal inuu gabadha kaga dhalo xaraan markuu ugu tago waad qaraca naya ka dhalay marka la dhaho ay tiraahdo nin gabooya iga dhalay hadda ma ila socota nin gabooya iga dhalay looma ogolo inuu magacii gabooyaha la siiyo amba inankii loo soo doono laakiin waxa ay jecel yihiin inay aabala'aan ku koriyaan runta markaan inii sheego aniga isaaq ma jecli inaan caayo dadku ma wada xumo boqolkiiba boqol haddii isaaq maanta la qaybiyo 75 anagayna taageersantahay anagayna nala socotaa laakiin dadka inta xunxun baan anigu la hadlaya inta xunxun baan dhagaha ka rifqaya runta markaan kuu sheego gabooya waa dad sharaf leh waa dad isiyo karaamo leh dad waxada maaha way ka sharaf weyn yihiin anaga nimcayaasin waxba nagalama maqno ma fahmaysaa nimcayaasin waxba nagalama maqno waan heli karaynaa wax kaste maanta aan nimcayaasin ku helino hadda inaan hadalka ka hor dhacaan ma jecli fanaanad baan soo qabanaya fanaanad fara Soomaaliyeed soo qabanaya codkeeda dhageysan doontaan laakiin engineer Amirow habeenkaad nolosha ka dhacdid oo aad doontid inaad ma garanaysaa habeenka reerkad qabsata khamriga siicab habeen dhaweyd baan ugu dhigay
markaan luuqu ii soo galay messengerkayga screenshot baan ka soo qaadi karaa wuxuu igu yiri iga raali noqo inaadeer habeenkii weyd waan cabsanaa sanhan ismaan garanayn reerka waan ku tufay war anaga isaaq waa dadkayagii anaga isxigna waan ma garanaysaa waan isla degnaa waa dad isku ma garanaysaa isku wadannahay waa dadan isnaqaano weeyaan anaga adiga waxba ma garanaysaa ay ku qaban mayno ma fahmaysaa marka injineer amiir kaliya man anigu rifaya isaaq oo dhan ma rifaya isaaq dad sharaf la weeyaan runta markaan inay sheego markaad 3 meelood ka dhigtid isaaq 2 meelood anaga ina taageersantaa laakiin meesha kaliya oo qurunka oo lafta ku jirtan taabanaya ما دلقين داني ما ديدجين ورا أن كلار شيء وطن كنا وكل شيء جوا ودكت وكلار شيء مركان لا يعيد كلش ويري وعاوي بيري عاوي ساقي يجلها عاوي بعد جبويها أنت اللي تديرو الله الله كفصة حبس على بقرة وريا يا طه مركان تاسي منس يا طه دي برات كعجورة وريا لما يسترقد كيس نبعو أي وربحين إبرو على يراهدو waxaad ka wada warqabteen inantani tan iyo maalintii anigu aan garaadsaday ee ay fanaanada ahayd oo aan lagu kala bixin waxaan maqli jiray nimco yaasiin waa la xaday oo reer caraale weligin ma maqasheen ilmo yaasiin caraale ayaa kursaday bal weligin ma maqasheen sheekada nimco yaasiin odayga dhalay wuxuu ahaa oday hantiila ah dabadeetana magaalada shiikh buu hanti ku lahaa iyo magaalada burco oo ay burco ku dhalatay ama inanta nimco loo yiraahdo ay ku dhalatay iyo magaalada Hargeysa kadib waxa dhacday magaalada Sheekh iyaga oo yimi ayaa oo nimco ku ciyaarayso guriga hortiisa reer Yaasiin Caraale way ogaayeen jiiraan bay la ahaayeen ilaahay buu been u sheegay wuxuu yiri nimco reerka dhalay Caasha Sacad Muusaha reer xamuudka waliba Sacad Muuse waa dad badan isaaq oo dhan ka kale isaaq oo dhan ma wada caayo ka soo digay Sacad Muuse hoos ma ka soo digay reer xamuud wuxuu yiri reer lacag laho burciyo oo Hargeysa badigay ahaayeen reer baadiye oo buuraley ahaayeen markii taariikhdooda iyagu ka sheekeynayaan eedo markii taariikhdooda iyagu ka sheekeynayaan buuraley bay ahaayeen nimco Yaasiin hadayna noo iman oo ilaahay noo soo dirina hooyadii maana aasneen bay habarti jirtay klibkeedu duwan yahay YouTube ku jirta haduu ilaahay nimco Yaasiin noo keenin hooyadii maana aasneen bay ilaahay ba ii soo diray waa lacagta wanaagsan jigeed iibsatay aniga isaaq ay igama goyo sirxaan kana isaaq uma caayayo nimco Yaasiin ayaa cayda iskale nimco Yaasiin ayaa aflagaadada iskale nimco Yaasiin ayaa ciibowday ayada tulkeed ka faanto ka carartay sidii qabiilka magaca midgahan ama magaca yibir ay uga orodana ayada iibsatay shaarkeedii ma fahmaysa anaga haddana beelihii gabooye amba han cayno amba han jiidano amba soontan oo gal maxaa inaga galay maxaa inaga 15 adeero waxa jooga eede adduunka waxa jooga wax lagu kala baxo waa dhiigaas anaga ku qanacna amba soo caytan amba lacag lagu siiyo amba yaa lagu siin ma fahanti dhamaystiro wariya soo daay dabadeetana nimco waxa qaadatay islaanta maanta oo odayga Yaasiin Caraale qabi jiray nimco markii ay qaadatay waxa ay tiri hadii aan odayga Yaasiin Caraale la tagtay tiri inantan baan soo xaday baldaawo hadii aan magaalada la sii joogo waa la ogaanaya maxaan markaa sameynaa baldaawo ku yiri haday sidaa tahay waa sheeko laga soo sheekay waa filim cusub oo loo soo dhigay waxay tiri uma celinayaan inta yar waan ka helo waan jecela daawo inantii islaanta way qaadatay buuraha Sheekh dabadooda la gashay sama fahmin 3 sano la maqnay gabadhan maanta le Allahumma salli ala Muhammad walaashay nimco sideetan jir baan fanka ku galaya iyo inanta burca la yiraahdo waxa 3 sano weyn gabadhan iyadoo xalada nimcadaadii ka yareed baan laakiin wadaadii maad maqasheen maamada maxay tiri koob iyo kontonkii baan dhashay nimcana 3 bay dhalatay 4 bay tiri miyaad maqasheen maamadaas adeegayada oo tiri nimca 3 sano ka yara uu sirxaansiyeed qofku markuu sirxaansiyahay waa sidaas noloshu ka dhacsan yahay hota adiga cid wax ka qoraysa mare amiiro ma fahmaysa beelaha gabooyada aflagaadisana waa inaad afkaaga ku soo raali gelisaa waxaad ku hadasho dhan klibkaagu 3 saac iyo wax u soconaya ma fahmaysa reerkaagana aad u amaanay
wuxuu yiri maanta ma yibra ayaa noo soo taliya oo ma garanaysaa ay anaga noo talinaya waligaaba yibir ku talinaya bucur bacay Somaliland intayna 18 mii qaadan ka hor maxaa la dhihi jiray yaa u talin jiray yaa hayay yaa ma garanaysaa boqortooyada daamiin xaqay ka timid daamid waa halbowlaha hargeysa ku taala yaa ahay ma fahmaysaa runta markaan ka hadalno bucur bacay wuxuu dhalay waa ogtiin ninkii dilayna waa ogtiin wuxuu yahay ma magti bucur bacay baa maxay ku baxda ma sheegi kartaa dib adiga laftigaaga DNA-kina laga qaaday weeyaan ilaa anaga naga timid be ayaa dunida ka dhamaaday maanta xashiish baa soo haray maanta yibiri tifiyada nooma soo fadhiisteen wallaahi baan yibiri maanta nacaayeen iyo bilaahi iyo tallah aad maqlaysaa ragii saaqay dhiigga lahaa baa dhamaaday midhal baa ka siino midhal aabihiin iyo dimuqraadiyaddii nabadhakada qabsada war dimuqraadiyaddu waxayna ku sintay inay maanta midgeena qabsadaan midgeena yidhahdaan carruur baan ku haysana dimuqraadiyaddu waxayna ku sintay maanta in yibiri inay qabsato dimuqraadiyaddu waxayna ku sintay magacii shacaaga karaamada lahaa in la caayo mataasaad maanta aqbalaysaa tobankii yibira sheekh joogay oo sheekh makintuu gaanka uu soo dareeri walaalayaal maxay ilaa yaasin carraa soo dhawow leelay soo dhawow abbaay waa dhawa xilli dambe ay ii tahay see tahay alxamdulilah maxaad ka leedahay ninka wallaahi bilaahi hurdaa uga soo kacay ninka hurda hadda markaa arkay inaad soo gashay walaalo isagaaba kaasuu anaga isaaq ma caayin abaayo isaaq ma caayin ninkan waa lasoo dirsaday ninkan waxaa soo dirsatay waxa waa nimca yaasiin ayadaa ka dambaysa mugshiga ma fahantay waxa way ciduu hadashay weday isaaq maanta indhihiisa macallin u ah way arkaan inay maamadan iyo maamadan isku eg tahay waxaan ku qanacnay waa dhiiggii bay ka marmeeraysaa ma fahantay marba qofkay usoo dirsanaysaa markaa meel social media soo gelinaysaa ninkan bay soo diraysaa marka anaga magaca isaaq nimco yaasiin waa sharmuuto aan adduunna xishood ka rabin aakhirana cabsi aan ka jirin kowdhe haddii kasoo hadho haddaan anagu hadda isaaq cayno isaaq waxyaabahan waxaa kasoo yeedhyeedhayasoo magacooda ma wataan oo saa noo caynaya aada weyn adiga wasqaban kari maysid oo adoo ku tufaas arkaysaa laakiin walaalo waxa weeye hal shaksi oo taasay tahay horta haddaan xitaal cayno halkaa usoo fadhiisano aanu isriyadoodii hore maxay toy aan u abtirino isaaqa xitaal way istaahilaan laakiinse maba caayeno oo intaasoo qof anagu afkayagu ma qabato sidaas macnaha nimanka cabtooyadoo kale ma nihin intaan cabsan astuliin qof uu qoran yahay waa asad cabdullaahi baan u malaynaya wuxuu yidhi isaaq way ka baqata war aniga isaaq kama boqo isaaq aniga waan la degay waan la dhiig bixiyey waan aqaanaa waxay yihiin iyo waxay gudaan ma fahmaysaa laakiin nin xun iyo nin wanaagsanba way leeyihiin ma fahmaysaa waxa weeye inaan yaro sirqaano nolosha ka dhacsan oo habeen iyo maalinba leef ku jiro isaaq kala qadqaadaya oo dowladdii kala qadqaadaya oo isaaqoo 8 lafood kala qadqaadaya maaha sharaftayda inaan ku dilo boqolaal qof oo ay taageersan baa jiro isaaqa waryaa aan wejigooda aniga aan ixtiraamaya aan magacooda ixtiraamaya hal shaqsi uma caayayo fakki looga bax qadka ninka xunee wasakhaanka caytamaya injineer amiir la leeyahay hadduu isaaqa weji ku og yahay ama isaaqa naf u hayo muxuu usoo cararo yurbi jooga nacalla abihi ku yaala geedka xunoo bidaarta weyn inuu hargeysa hadduu naf og yahay tago naagtan anigu horta walaalay kacalisay ha iga dhexgelin xamdiye anigu yibraha hal mid baan leeyahay yibrahow dad dhiig badanoo waxa waaye haddii maxay tala soo daaqlo dadka iska celiyaa habartan asaasaqdad surka goyn weydeen anigu waxaan soo jeedinay nimco yaasiin surka lagu dhifto ma fahantay adduunka eebay uga saartay dadkii waad mahadsantahay abaa iska seexo soo jaaranaysaa ma ogola dhii'aaneed inay qaado waxa waaye maxay ahayd habartan ha loo taliyo kowdhe nimanka xuxunka ahee marba lacagta soo siinaysay nolosha ka dhacaya waxa waaye waxay rabaan ku hadlayaanna waxa waaye hal mid baan dhahayaa soomaalidu waxay ku mahmahdaa af noolna wuu hadlaa ayna wuuciyaa bal maanta gabooyo cay midgaan dheh yibir dheh waxaa rabtid dheh magacyadan yibir iyo midgaan iyo waxaanoo dhan idinkaa la baxdeen waa waxyaabii awowayaashiini hore la dhihi jiray idinka asaliyadiina midka kasoo jeeda iyo yibir أنا واقعية برتن أو واتساب كر لمركز هايو
waad mahadsantahay libaaxa wuxuu yidhi anigoo ah sacad muuse waanan ku taageersanahay buu yidhi ku tuf buu yidhi waad mahadsantahay walaal sacad muuse oo dhan xitaa anigu kuma tufayo sacad muuse oo dhan xitaa ku tufayna waa reer xamuda reer baadiyaha ah ma fahmaysaa seefindi cindi geelba maxaaban isaaqayo soomaalida kale u eryenaynaa habartan yada dadkeedii ka carartay habartan yada dadkeedii ka ordaysa ayadaa magacan midgaan iyo midgaan bay ahayd iyo fanaanad bay ahayd midgaan ah ka ordaysa oo doonaysa inay balaayo kale iyo dad kale isku dhadhajiso ma fahmaysaa waxa weeye annaga iyadoon baan ka adkaanaynaa iyadoon baan baalaha ka rifaynaa cid kale annaga baalaha ka rifamayna ma fahmaysaa waxa weeye gaalkana dil baa la adeer kartiisana si walaalka makhaartiga magtana la bixi makhaartigana ku fur ma fahmaysaa gabadhan ayadaa waalatay gabadhan ma fahanteen insha allah soo walaasha ilhaan xaraga facebookaga kol video male mar labaad kusoo noqo amba whatsappka qaybta whatsappkan kaasoo gelaya baayo halkan insha allah halkan igala qayb qaado ilhaan xaraga hala soo dhaweeyo waa fanaanad soomaaliyeed waa fanaanad qaranka soomaaliyeed kasoo jeeda waa fanaanad ruwaayada qoota inoo matasha soo dhawo salaamu calaykum waa lagu maqlayaa waxaa ku daawanaya kuniya hayay ilhaan وعليكم السلام ولا مقلة يا كسعة وان في عنا الحمد لله سودو وإيكو أنا كسوق قبتا فنانات صوماليات ما شاء الله تشلاق وين عادو يقانو حتى يوكي وإيكو وين كسوق قبتا مانتا مقرسة برامج كان معي ياسين أنا ولي بكهد ليا هذيك كسوق بقتم حد كلنا ما شاء الله waxaan ka leeyahay horta dhammaan asxaabtay daawanayso oo dhan ee baraha bulshada ku jirta kulligood waan salaamayaa horta walaga qaada ku soco faraawla asasna arkaa soo diray iyo walaal faraawla asasan arkaa iyo wadankiiba inuu wada casaan iyo wada leeg noqday marka soo gashay ku soco way mahadsanyiin dhammaantood horta arrintan waa arrin naga yaabisay annaga dhan runtii dadna madaxa la xanuuno way la aaminsan yihiin dadna shoog bay ku tahay dadna riya ku tahay special dadkaani kala riya ku tahay sheekadan wallahi waxaan ku ogay haddii aan ka sheekeeyo anu gabadhan waa saan ii sheegay hadda ku hor 2000kii baan bartay anigu maan ahayn dadkii hooyad ka dhaliyay iyo dadkii garanayay iyo dadkii ma garanaysaaye meel la deganaa midna maan ahayn laakiin mayna ahayn dee qof qabiil kala ee waxay ahayd naagii biri ahayd oo la garanayo gabooyaa weyn صح أنا قلت تماها نسمين شري وحيت على لسان تماها وسمعيه سان وحكومة مريض شعلان شرت وإيه من شرت يلا اتفق كذا لطيف كذا أنا فهمت كتيرنا أنا قول صح صح برد حاسة وحن مقلي إنك بحضي صح جبوري برد حاسة ما هنا ولا حما توتون سيكس كيمياء هذا ولا لا وحين كاسة صح أنا وأصحاب ميل وفرنا حبل بدل ويتكرنا يعني هذا محل كان أيان وعنى وين ويديني أضرب السؤال وحلي يقولوا لي إلهان إلمات كتاي شيء كذا وحير بقى كتاك فرز مقالة ها تنت هذا يدري حاجة وكلي أيام كرنا تنسوق أدي سمارت صح هاي حاسر ما هذا مركل كوش في جدون تا أنتي شيء كذي وكذي بيراتي ما نديب ويدين وأنا قف أنا جيجو إنه والد كيو كلام وأنا فنانة قرن بينكم مش يجي إني معنا وضعك أنا أنشأ على هاد بينكم مش يجي هاي I love it مركا حد كذا ما نقول بتشرين أوكي أنا جا فانك كوسا بيري أصحابنا هني ووضعني تشرني ووضعبي تشرني وانسراعي تشرني ملاوي قلبات شر وانسرقنا أما مرة وانسرقنا ما ندري شقينا واتن كواركي ماشي فيسبوك كتير ولا وضع وحنا هايستي وحدة كستيتشيلين شر واتن سوق قالن كهلا دقة صح وين مقليت وسوي ويتمين ده هذا اللي دمان حالي بانو سرقنا نقول حالي مركانو سرقنا iyada ii timiday oo telefoonka hore aniga aan iska bedelay ayay kii hore raadinaysay way aragtay way ii timiday gurigayga ka xaysay gabadh kale oo leeyahay Maryan oo tuxda qabi jiray inaan kale oo markaa igu horeysay meel baan wada tagnay waan cashaynay sabaayadii cashiix ay u sameeyeen waan sheekaynay waan fahmay markaa arrimihiisa doonaysa inay ii sheegto waa marka waa fanaanada la isku haysto waa nimcayaasin caraale hay meeshana waa la dhan waaba halkan de guriga agtiisa waa Wembley baan deganaa anigu aan from London hada weyn hay alwaa maanta ilaa duwani ma dhex fadhinaa waa London gudaheeda hay
waxaa dhacday markaa hadee dhammaan anigu laftarkii waan cabursanaa waxaan doonayay inaan bala hadlo oon istuweeshinada wixii runtaan ogaado inta dad kale ka maqli lahaa dadka degdegana anigu meehe gabadhiiba xaggan ka qaraacaya maaha dhinaca kale ka garaacaysa لأنه هالبوعة نابليون مرنا وأقول ذكر هبي ما تكون هاي نما فديا وأنا كل صاحبي يمرين عبد متام بلدا جواله كلا صور وشوف القبيل تري تذكر تمرين وأنا وين صاحبي هي تقول لك ولي بقبيل هذا إيش يا جتاي تهاي إن أنت كلنا كل ودرس كذا حقول مركان بالورقة كان أنت أنا لو كي دورين بكيز بالله ذي بقى وحيبا لو يديني سابا سيدين أي الله قاضي أنا قابل نجوا رئيسنا صديق أنا تسأله عيان نقول له هيا حسن قول أو محل قاضي صايم كان مركز واحد يقول تمي هو يدي بسيطة ورنا غيا ورنا وإذا تبعه دلوا ولا بدو كوني وان قاعد حكى لا بدو كوني لبيه توان كي معمدي دمتي شيء سو صعد مصاهي تمي هذي بحلي قاعد كسو قاتنا يستعمل هذا نبريسا تقولي وبميتة تمي هذا حمبارسون كي هاي وكذا قلت لها أمك كذا خوف كده تمي هذا ولا يعني دور تمي هو حمبارسون وحسين الحين نسين وحبي شيء بس كأي مكان لا تشوفه مركا كل ويأتي دعوانا ويأخيان